وهجاج إن ورك الصومالي ده هدي أن إجنانا إن مجال المقدشة وح كل ما شالي جودي قدور شوي كمدة حبنامي الصومالي يحسبي هذا كدي وانجشان الصوماليا سياسة ده سيا يوجا أرين سدان قابك سياسة ده قابك حسبي هذا سياسة ده أي تهي إن يدلك وجهه الجلان شروع ده أي تهي إن يبوحيان يصيدوا كل ديار جروجا دورشة قف يعده ودلك كده كلن كاسي waxa uu ku saabsanaa ayaanu ka wareysanay maxamed mukhtaar ibraahim oo ah madaxa macadka sipam oo xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliya ka taageera sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dimuqraadiyadda Faadima Taxadar ayuuna u waramay kulankaasi wuxuu ahaa kulan wada tashi ah waa kii ugu horeeyay ee dhaxmara guddiga doorashada madaxa bannaan ee qaran iyo xisbiyada looga wada doodo ee qaab shaqeedka xisbiyada iyo guddiga sida uu noqonayo sidoo kale guddigu waxay soo bandhigeen daraasad ay ku sameeyeen waxaan loo yaqaano voter registration ama diiwaangelinta codeyaasha waxay soo bandhigeen noocyada kala duwan ee jira mid walba iyo qarashka ku kici kara iyo waxa uu ku fiican yahay iyo waxa uu ku liito sidoo kale waxay soo bandhigeen kormeer ay ku sameeyeen xisbiyada hadda diiwaangashan ee kumeel gaarka haysto goobihii ay tageen iyo waxyaabihii ay kala soo kulmeen ayadana way soo bandhigeen marka maxay ahayd aragtida xisbiyada marka runtii waxay ahayd mid muujinaysa yadidiilo oo ah in waxna badan ay dhiman yihiin laakiin cala aqal in uu bilowday arrintan ka wada hadalka ah xisbiyada aad waxay u daneynayeen la soo dhameesto shuruucdii sidoo kale waxay aad u dhiirigelinayeen in arrinta laga dhiga arrin qaran sidaan la soconno dhammaan xisbiyada hadda diiwaan geliyay xarumahooda waxay ku wada leeyihiin waa muqdisho in la baahiyo oo gobolada oo dhan la gaarsiiyo sidaan ognahay haddii la rabo xisbi inuu ka gudbo meel gaar oo uu gudbo xisbi rasmi ah waa inuu cala aqal 18 gobol ee dalka ka jira 9 ka mid ah waa inuu xarumo ku yeesho si marka taa ay u dhacdo waa inay wada shaqeyn badan ay dhexmarta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dowlad goboleedyada ay dhiirigeliyaan inay xisbiyada ka furmaan macna arrimo noocaas oo kale ah ay aad u soo bandhigayeen waxaa la sheegayaa inay jiraan qodobo la isku fahmi waaye maxaa ka mid ahaa qodobadaasi isfaham la'aan mayna jirin laakiin waxay ahayd cillad la wada dareemaya inay meesha ay ku wada jirto oo ah in agabkii loo baahnaa inaanu jirin in waqti aanu jirin macnaha waxyaabaha la isku wada waafaqsanayay ka mid ahayd sidoo kale halka laga bilaabayo hawsha laftigeeda oo ahayd xisbiyada maadaama mar hore ay soo qaateen kumeel gaarnimo guddiga waxay daneynayaan inay xisbiyada hadda ay u dhamaystiran yihiin wax alaali wixii loo baahnaa si ay kaga gudbaan kumeel gaarnimada ayagana waxay ku doodayeen oo doodooda ahayd waxay tahay arrintii macnaha inay ka jiifta dhanka guddiga iyo dhanka macnaha aana dhamaystirnayn oo ahayd macnaha shuruucdii loo baahnaa oo ugu horeyso macnaha sidaan sheegnay sharciga doorashooyinka aanu dhamaystirnayn sidoo kale inaanay dowladda aad u dhiirigelinayn macnaha xisbiyadii oo weli macnaha xukuumadda xisbigeedii aan la diiwaan gelin oo aysan arrinta ahayn arrin qaran aysan ahayn dowlad goboleedyadii aanay aad u hadalhayn doorashooyinka mana waa arrimahaasaa la wada sheegaya laakiin maana ahayn hisaab garasho waayo waxay cilladaha jira ee la wada dareensanaa ayay ahayd waa tahay kaalinta bulshada rayidkuna maxay tahay marka kaalinta bulshada rayidka sida anagoo kale macadka sipam waxa uu kaabiyaa ama uu caawiyaa xisbiyada si uu u tayeeyo inay isu diyaariyaan institutionally siday kaga qayb qaadan lahaayeen doorashada sidoo kale macnaha waxa ay cod ku biiriyaan taab socodka doorashooyinka ayaa ayagana sidoo kale ay cod ku biiriyaan soo marka annaga qaybtayda waxay inaan macnaha aan xoojino sidii waddankan ugu guuri lahaa dimuqraadiyad ugu guuri lahaa xisbiyo badan ha noqoto institutional kaalmada aan ka geysan karno iyo inay laftigeeda noqotoba ajandaha xisbiyada iyo u dhexeeya guddiyada ay tahay ajanda Soomaaliyeed oo qaranka Soomaaliyeed ay ka wada doodaan haddii la xaliyo caqabadaha ay xisbiyadu tirsanayeen ma leeyihiin awood iyo tayo ay kaga bixi karaan shuruudaha laga rabo runtii waxaan aaminsanahay in ay shuruudahaasi ay ka bixi karaan shuruudaha lagu xujeynayo maaha shuruudo aan suurtagal ahayn maaha waa shuruudo macquul ah oo degsan oo la wada yaqaano oo uu shuruudaha diiwaangelinta rasmiga uu sheegayo soo marka waxaan filayaa inaysan ahayn shuruudo dhib badan oo ay ka bixi karaan kaasi waxa uu ahaa maxamed mukhtaar ibraahim waxa uu u waramayay Faadimo Taxadar